أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن شاء الله تعالى موضوع maanta aan soo gudbin doono waxaa weeyo sixirka loo yaqaano sixir tacliiq ama sixirka loo yaqaano sixirul hawa. sixirada ugu daran way tacliiq ama hawada. geed ayaa lagu soo binayaa. geedkaas mar walba dabayl ku dhacdo qofkii sawirkiisa ayaa la soo qaadayaa, waa lagu dhajinayaa, ama wax raadad qofkii raadkiisa ka mid ah ayaa lagu soo binayaa. sixirkaas waxaa soo biyo cafaariida. jiranka ugu qatarsan ayaa soo biyo cafaariida, kuwa madax adag waay almutamaridiin. ilaahi subxaanahu wa tacaala inta qof oo xanuunsan ilaahay xanuunka ka caafiyo. waxaad ogaataan oon soo gudbinay oon soo gelinay kol dhow in ruuxa looga baahan yahay duco badan, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxaas jeclaaday. sixirul hawa ama sixir tacliiq waxa loo yaqaano waa akhdaru sixir, sixirada ugu khatarsan way. ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadiisa ha ka badbaadiyo. intuu hayo intuu haynin, intuu hayna Allah ka caafiyo, intuu haynin ilaahay ka badbaadiyo. waxaa weeyo waa la isku imtixaamay. adduunkan waa daarul imtixaan. ayaga way imtixaaman yihiin oo waxaa laga rabay inay ummadda ilaahay faraha uga qaadaan. dadkana way ku imtixaaman yihiinoo wixii imtixaanoo qabsaday waxaa looga baahan yahay in ay ku samraan. marka labada dhinacba waxaa ka jiro in la isku sabro. alxamdu lilaahi calaa kulli xaal wanacuudu billaahi min xaali ahli nnaar. alxamdu lilah. qofka uu sixirkaas hayo calaamado fara badan ayuu leeyahay. wuxuu leeyahay madax xanuun aad iyo aad u fara badan, mafaasisha ama joontiyaasha ama kala goysada oo xanuuno, caajis fara badan, hurdo uuna ka kacaynin, oo xilli walba uu mataqaanaa rabo inuu sariirta uu saaran yahay. shaqo hadduu tago oo wax yar uu wado oo shaqadii uu ka soo cararayo ama uu ka caajisayo. wuxuu leeyahay sixirkaas aadka u xun, ilaahay ummadiisa ka badbaadiye. waxa la dhaho qofkii oona dhaqso u guursanin ama markuu guursado guurkii ka fashilmayo, dadkii uu ku dhex jiri karin dabeecad xumo, mar walba iska xanaaqayo, waxyaala aanan laga xanaaqin uu qofkii xilli walba ka xanaaqayo. xabiibkeena sallallaahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qofka xanaaqiisa qarsado ayaa geesi ah, ma aha qofka lagdinta badan geesi. qofka waxaa la rabaa inaadna xanaaqin. waxyaalaha kaa xanaajin karo in aad iska ilaaliso, ama qofkii in badan aad xushmayso, aad wanaajiso. xanaaqaas fara badan ayaa ka mid ah. qofkii oona dhaqso guursanin, ama hadduu guursado guurkii uu ka halaabayo, dadka la noolaan karin. marka danta ay leeyihiin maxaa weeye? danta ay leeyihiin yoolkooda ugu weyn waxaa waayo in ay dadka kugu diraan, in lagu dhaho ruuxan ruux dabeecad qaba ma aho. ruuxan awalba waa la garanaya wuxuu ahaa. ummadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ka hor keenaan ay kugu diraan waa yoolkooda iyo dantooda koobaad. maxaa lagaga baahan yahay marka? waxaa kaloo yeelanaysaa culays xagga cibaadada. haddaad ahaan jirtay qof cibaadada jecel, diinta jecel, muxaadaraadka jecel, mar walba waxay kuu jiidayaan dhinaca xun. waxay kale mar walba isku dayayaan in ay mataqaanaaye waqtiga kaaga dhumiyaan malayacniga.
دينتنا إلى سبحانه وتعالى وح كتاب كله وتجمله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي هي اسكرتك وحمل يعني حديثه وحوها قفك مسلم كوناجس وحوايه تركه ما لا يعنيه إنه اسكرتك وحي ما لا يعني وح الله وحي دنك وجرين دن الدنيا دن آخر وحي وجرين حصوبنا حبينك حب هنا قوسنا وأنيبوا إلى ربكم إله أصفير مرول بؤكلها شيطانك واتفقاتي ما تفقانين ودوده لأن امتحان والبو إله سبحانه وتعالى وقوكينا رب العالمين أساكون حريص بدن حنون أياكو هاي إله سبحانه وتعالى مرول بكون حريصنا مركو حد لهذا إله وإسي جعلانا يا إلهنا وأسي لوانا يا استغفارت بده asaga wuxuu kugu dhibayaa cilciliska dambiga uu kugu cilinayo adigana waxaad ku dhibtaa cilciliska istighfaarta astaghfirullah wa atuubu ilayh astaghfirullah wa atuubu ilayh astaghfirullah wa atuubu ilayh markaas ayaa waxa la ogaanayaa labada kooxood kii guuleysanay waxaana guuleysanaysa mar walba kooxda xaq ah ilaahay subhanahu wa ta'ala qof walba oo culayska ka qaado wuxuu kale qofka yeelanayaa shaqadii uu qofka ku nagaanaynin ama asaga hasoobiya shaqada oo muasasa asaga uu leeyahay ha ahaato ama shaqo kale oo mataqaanaa dad uu shaqeynaya ahaato culays walba oo ka hor imaado waxaad isku daydaa in aad ka dabaalato لأن هدي أد رفضت مربات ماشي أد سعت جالسة لكن هدي أنا رفنن وحاول هلك سيتجرانسة إلهي سبحانه وتعالى أصغرنا أمري صبرك إن لا صبر تبع عدو حسد إيش وحيالها دفعية وحاكمة ده ودمية ودبدمسك ودبخ شدن إن بحث صدقة السر تطفئ غضب الرب صدقة السر وحكاد من نساء إلها عردس ذنوبته وكجلنا يدباتين وكوجي سنة درادود أياد وحفر بدن يوحفر بدن كويسة أصغر مر والبو حاويو وحاور هذينايو أما وحا متقاناي حل والبو وجانس كور هذينايو حاويو إن وكفشليو أما إن أن متقاناي ماشي لو بحنا أنا جارين وحاد سوبنيسا أو تكون داليسا إن تكوع العليسو قلب الصبح وحاد تكوع العليسا دعاء فضل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وتكوع النساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات دعاء ودعاء شاملة ما يربضنا يتعب نساء وتكوع النساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلهي بد من جلسه إلهي سبحانه وتعالى كلموينكي سلاميسك ترينات كما جلسه وحد كما جلسه إلهي وحوق القيران عفاريد يجمنك يا مصصك يا بلاد وريسو يا مد هبينك سعطو يا مد معنك سعطو وحصل إلهي كما جلسه من شر ما خلق وحو إلهي خلق الماجر ما إلهي وحو البو خلقي أو شروته أي إلهي كما جلسه إلهي سبحانه وتعالى وكامل جلنايا وتكوعلني دعاء سوى دعاء مهم جدا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 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 وتكون عشانيسا هالشاكين
فيلن هفيرسنن تليفون هفيرسنن warkii ii geeyay ha dhihin dadka xanuunsanay jilbaha ay xanuunay lugaha ay xanuunay jirka kama kici karo qoorta waxa ogaataan waxa way dadku waa isku fitnay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam yaa la deen waay ma adiga lagu deen wax la deenay malaha laana sixirkan waxaan waa wax la isku imtixaamay gashiin baa leeyahay waxa naga la rabaa sabar iyo in la sabartano استغفرت إلى وحوليها إن اللي بانتان ضاربتان وتقول زتان إله إن بذن حصل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إله سبحانه وتعالى عرف أنها أوفض ذي أدال عن خير كفاعله سيشار قرية لو ذاق ولا عليهن أدبال ما سنتين بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء